Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada barnaamijkeena. Waxaan maanta barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa masaska ugu khatarta badan caalamka, kuwaasoo dadka ku nool meelaha ka baxsan magaalooyinka lagula taliyo inay iska ilaaliyaan, sidoo kalena ay ka fogaadaan deegaanada hoyga oo ah masaskani. Haddaba sida la wada ogsoon yahay, masaska oo dhan ma aha kuwa ku halisa dadka, balse nooc gaar ah oo ka mid ah ayaa awood u leh inay dadka suntoodu waxyeeleyso. Suntooduna waxay sababi kartaa inay minutes gudahooda ay dadku u dhiman karaan, waxaana dilka u fududaynaya sunta badan ee jirkooda ku kaydsan. Haddaba, waxaa masaska dunida ku nool loo kala qaybiyaa 3 kun oo nooc oo kala duwan. Koox walbaba ay leedahay astaamo ay kaga duwan tahay kuwa kale, waxaana 13-ka nooc laga helaa meel walba oo dunida ka mid ah, marka laga reebo qaaradda Antarctica iyo waddamada kale ah Iceland, Greenland, iyo sidoo kale waddanka New Zealand. Waxaana 3 kun oo nooc ee masas ee sun leh, 600 oo nooc oo ka mid ah, waxaana qolooyinka khubarada ku leh masasku ay sheegayaan in 600 ee nooc sunta leh kaliya ay bini'aadamka suntoodu waxyeeleyn karto 200 oo nooc oo ka mid ah. Haddaba sida ay sheegayso Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO, waxaa masasku ay sanad waliba qaniinaan 5 milyan oo qof, sidoo kalena waxa u dhinta qaniinyada masaska sanad kasta in ka badan 81 kun oo qof, intooda badanna ay yihiin carruur. Waxaanay hay'addu sheegtay inay inta badan ka dhacaan xaaladahan qaaradda Afrika, Aasiya, iyo Laatiin Ameerika, waxaana u badanaa qaniinaa waa dadka beeraleyda ah. Haddaba, intaynaan bilaabin barnaamijkeena, fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta aan halkan ku midownay, sidoo kalena like saar muuqaalka haddii uu ku cajabiyey. Mahadsanid. Abeesada nooca loo yaqaano Barber. Noocan abeesada waa nooc ka mid ah masaska ugu khatarta badan, waxaana laga helaa badanaa koonfurta iyo waqooyiga qaaradda Ameerika. Waxaanay leedahay midabo kala duwan iyadoo kolba isku ekaysiinaysa deegaanka ay la nooshahay. Waxaana uu madaxeedu u samaysan yahay qaab 3 geesood ah amba triangle ah, waxaana uu yahay nooca maskani mid aad u dheereeya. Sidoo kale waxa uu maskani yahay nooc ka mid ah nooca ugu sunta badan ee ilaa hadda laga helay qaaradda Ameerika, waxaana uu dadka soo gaadhsiin karaa markuu qaniino inay dadkaasi soo wajahaan xaalad caafimaad oo daran. Waxaanay suntiisa sababi kartaa in qofka kaliyihiisu ay shaqada joojiyaan, sidoo kalena inaanu qofku samayn dhiiggiisu wax xinjiro ah. Taasina waxay sababaysaa inuu qofku si degdeg ah u dhiig baxo, waxaana uu maskan suntiisu waxyeello u geysataa unugyada dhiigga cascas. Ugu dambeyntiina, waxay suntiisu qofka ku sababi kartaa inuu qofku u dhinto faalig, taasoo ay sababayso sunta daran ee uu maskanu leeyahay. Maska madow. Nooca maskani waa nooc ka mid ah masaska ugu khatarta badan dunida ilaa hadda dunidu isku raacday khatartiisa, waxaana uu midabkiisu yahay mid madow, waana halka uu ka helay magaca maska madow. Haddaba maskan waxaa laga helaa qaaradda Afrika, siibahaan bariga iyo koonfurtaba, waxaana uu maskani ka mid yahay nooca masaska ee ugu sunta badan ee qaaradda Afrika laga helay. Waxaana uu maskani jari karaa masaafo dhan 12.5 mayl saacadiiba, waanaad qiyaasi kartaa maskan xawaaraha intaas le'egna kuna darsaday inuu ka mid yahay masaska ugu sunta badan qaaradda Afrika. Sidoo kale, sida ay xogaha qaar sheegayaan, waxa uu maskani noqday mid ay dad badan oo Afrikaan ah u dhintaan suntiisa, marka la barbar dhigo masaska kale ee iyaguna khatarta badan leh ee qaaradda laga helayo. Sidoo kale, maskan qaangaadhkiisa sunta ku kaydsan ayaa ah ilaa inta u dhaxaysa 12 ilaa 20 dhibic oo fang, waxaana bini'aadamka dili kara 2 fang oo keliya, taasoo ka dhigan in halkii mas ee noocan uu dad badan u galaafan karo. Haddaba, maskan waxay suntiisu toos u weerartaa wadnaha, sidoo kale waxa uu qofku yeeshaa ilmo badan oo ka timaada indhihiisa, waxaanay suntiisu indhaha ka yaraysaa aragga. Sidoo kale, suntiisa halista badan waxay saamaysaa habdhiska neefsashada ee qofka, ugu dambeynna waxa uu qofku noqdaa mid baaralaysa. Maskan waxaa loogu yeedhaa Bombsland. Sidoo kale, maskan waxaa la dhahaa oo ay dadku u aqoonsan u yihiin maskii geedka, maxaa yeelay had iyo jeer maskan waa mid ku dul nool geedaha, sidoo kalena waxa uu shabahaa caleemaha geedka. Haddaba, maskan waxaa la isla aqoonsan yahay inuu ka mid yahay masaska ugu khatarta badan leh ee badanaa aadamaha lagala taliyo sidii ay khatartiisa uga fogaan lahaayeen. Waxaana maskan laga helaa qaaradda Afrika, siibahaan waddamada kale ah Mozambique, Botswana, iyo Namibia. Waxaana uu quutaa maskani shimbiraha iyo xitaa masaska qaar, waxaana uu maskani soo gaarsiin karaa qofku markuu qaniino khataro badan.
waxaanay sunta maskan ku jirta ay awood u leedahay inay burburiso unugyada dhiigga casas, waxayna suntiisu sidoo kale carqaladaysaa dhiigga. Sidoo kale qofku wuxuu yeelan karaa astaamo kale sida laalaabato, madax xanuun iyo inay qofka hurdadu ka guurto, waxaana uu qofku u dhiman karaa suntiisa si degdeg ah haddii aan laga gaadhin. Maskan waxaa lagu magacaabaa Cobra ama boqor Cobra. Waxaan u malaynayaa inaanu maskan magaciisa ku cusbeen bulshadeena Soomaaliyeed. Sidoo kalena mask Cobra waa mid caan ka ah deegaanada ay Soomaalidu degto. Haddaba maskan sidaynu wada ogsoonnahay waa mid aad u khatarta badan oo halistiisa wata. Waxaana uu maskan midabkiisu noqon karaa madow amba huruud isku dhex jirta. Mask Cobraha waxa uu dhererka celceliskiisu yahay ilaa 8 amba 10 fiit. Sidoo kalena waxa uu dhererkiisu gaari karaa 18 fiit. Haddaba maskan ayaa leh sun aad u daran, waxaana uu suntiisa ku tuuri karaa meel ka durugsan halka uu joogo, waxaana uu suntiisa ku dili karaa masaska kale ee ka hor yimaada. Haddaba maskan waxaa laga helaa oo uu caan ka yahay guud ahaan qaaradda Aasiya, sidoo kalena waxaa laga helaa qaaradda Afrika iyo meelo ka mid a waddanka Maraykanka. Waxaana uu maskan yahay mid aad ugu feejigan weerarka lagu soo qaadi karo, isagoo awood u leh inuu naftiisa ka difaaco weerarka. Waxaanay qaniinyada maskani qofka ku sababi kartaa xanuun badan, khalkhal ku dhaca aragga qofka, hurdo la'aan qofka soo haleesha. Ugu dambeynna waxay suntiisu qofka ku sababi kartaa inuu qofku u dhinto paralysis. Sidoo kale sunta maskani waxay awood u leedahay inay bini'aadamka ku disho muddo lagu qiyaaso 45 daqiiqo gudaheeda. Waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iideen, sidoo kalena aad wax ka barateen noocyada masaska ah iyo khatarta ay ku yeelan karaan haddii ay qofka bini'aadamka qaniinaan. Ha iloobin inaad qaybta hoose ee commentiga wixii fikrada noogu reebto. Mahadsanid.